إنسان قررتينا ما يقاولي ولا مريم يقول حسين مركز يقول حسين والله يا نمرة سبع وعلوش وهني الأوري والله أنا قررتينا صور الله دنا ويدقوا أقبل سنة يدي بسمو ويدقوا أقبل هم ما صدق يا مارس يا مشي قولي يا ملك أورينا أورك ما بقول علوش rasmi rays ayaa sheegtay inay uur leedahay misana ay maalmahan soo socda fadhini ku soo haya gaar ahaan gabagabada bisha Ramadaan ay u muli doonto taasi si weyn baraha bulshada la iskula dhex maray soo kalena waxay sheegtay inay hablo badan ku soo aflagaadeeyeen inay soo bandhigto uurkeeda inkastoo uurku yahay mid Ilaahay siiyay hawna Ilaahay ku qalladay muddo badan ay raadinaysay tan iyo markii ay iskuursadeen Farxaan Yare ma aysan dhalin wax ubada inkastoo oo ubadka Allah hayo haddana fadanaada caanka ee rasmi rays waxay sheegtay inay iminka uurkeedii iyo hibadeedii yahay u hirgashay midaasna ay iminka ay rajaysay ayna heshay ilmo oo Ilaahay siiyay oo ku irsaaqay barta leefka iyadoo ku jirta fanaanada rasmi rays codka hore ku soo aragteen waxa ay sheegtay inay iyadu tahay hadda xamilo sidoo kalena ay rajaynayso inay noqoto hooyo canugeedii labaad ku qaata dhabarkeeda amba ku qaata laabteedii shaqsiina naskeeda arrintan ayaa ah mid farxad weyn ku abuurtay seega rasmi rays iyo sidoo kale familigeeda intaba balse dad badan oo faraha bulshada isticmaala intooda badan ahaad moodaba inay ka samaysan yihiin dadka xagga xumaanta ka eegaan aynu ku aflagaadeen wax kasta haddii uu yahay khayr iyo shirintaba ayaa ku aflagaadiyay oo ku tilmaamay waxay u soo bandhigtay uurkaaga qaarkood ayaa sheegay in calool weyn leedahay caloosha weyn ay tahay fulxumo balse waxay ugu jawaabtay si qurux badan taasi oo ku tiri hooyadaaba uur ayay lahayd calool weynna way lahayd hadda waad yeelan doontaa balse haddii aad weydo cid ku aroosta isku day inaad hesho cid ku aroosta si aad u yeelato uur waxaad u dhashay ilmo si hadduu Ilaahay kugu qalladay amba ku siiyo inkastoo ognahay hibada inay tahay ilmuhu inay yahay hibo Ilaahay ku siiyo amba dadka uu siiyo haddana dad badan ayaa ku cusreeyay oo ku tilmaamay gabadhan inay soo bandhigto uurgeeda inkastoo ay qurux badnayn amba wanaagsanayn oo ay jirto cayuunta amba isha bilaadanka haddana ma qurux badna inaad soo bandhigto uurkaaga adiga ra'yi ahaantaada sababtoo ah waxaa jira kuwo badan oo ilmo haysan oo Ilaahay ku irsaaqan iyo kuwo badan oo ishooda kartooda labaduba dhacaan oo ka naxaya marka ay soo bandhigtay ilmaheeda kuwaasi oo dhici kartaba inay Ilaahay ha ku sababay ilmahooda qarso wixii qurux badan oo Ilaahay ku siiyo haddii aysan ka ahayn ajar iyo wax xasanaada oo dadku u gudbinayso walow xasanad iyo ajar tahay uurka oo xataa inay labada qof ee lamaana isku tagaan ay tahay mid xasanad iyo ajar ah haddana inaad soo bandhigto oo meelaha kaga faanto fagaareyaasha oo mid aad looga wanaagsan yahay balse saaxiibayaal wada dhageysano hadallada rasmi rays si qurux badan ugu joogtay gabadhii guursadna wax guursaday insan qarartiina ma yaqaawli wada mariyay يقول حسين مركز يقول حسين والله يا نمرة سبع وعلوش وهني الأوري والله أنا قررتينا صور الله دنا ويدقوا أقبل سنة يدي بسمو ويدقوا أقبل هم ما صدق يا مارس يا مشي قولي يا ملك أورينا أورك ما بقول علوش يقولون اسمها واسمها هنا أدنك ما دائما هذا أدنك قد ما نسأي ويدين كنت على وين عليها على وين هو هذا ملهين أدي ملهين مع الله يرى اللي فرقنا كتوب قلب الدواء تسرون حاصل دقيقة الله حاصل بالآن هذه أركتي نوعا وكلا إنه الدعوة ده أصول السؤال قد إنه كويد الجواب قد أنا أصلي روحي وقد أنا أفعل إيدي صوص على سديت بقول دعوة نصور ورنا عشر abtisiro jestesa taasi oo gabi ahaanba gabadha ku noqotay amarkaa iisto aan iyo inay ka jawaabi kar weydo waxaan leenahay rasmi rays ha soo bandhigin ilmahaga iyo canuga alla ku siiyay ee ku shukri Ilaahayna ugu mahadnaq soo kalena siigagana ixtiraam oo xushmee saaxiibadina qaybaha badan ee ku xina barteena Facebook ee horseed 24 iyo sidoo kale page-keena Cabdalla Deeqsi